السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبن دي سلامية صاحب يل waxaad ku soo dhawaataan 10 aad iyo aad u xiiso badan oo ku saabsan the prophet sallallahu alayhi wasallam, nabigayni Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, and the traveler iyo ninkii musaafirka ahaa. waa run ahaantii 10 aad iyo aad u xiiso badan. saaxiib yeel 10ka waqti aad u badan baan soo geliyay. waxaan idinka codsanayaa in aad like gareysaan haddii aadan qayb ka ahayn asxaabta nagu xirina inaad nagu soo birto si 10da noocan oo aad ku xiisaha badan aad ula socoto insha Allah. 10da hala taageero saaxiib yeel, taageeradu aad iyo aad bay u yartahay run ahaantii. waxaan idinka codsanayaa inaad taageertaan insha Allah 10da. waayahay marka ugu horeysahay nin baa masaajid imaanaya si su'aalo looga jawaabo, kadibna isaga iyo nabigayna Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa waxaa dhaxmari doona wada sheekaysi aad iyo aad muhiim u ah. su'aalo badan ayuuna weydiin doonaa. waxaa laga yaabaa su'aalahaas naftirkaagu inay adiga ay ku anfacaan. haddaba qof waliba oo cashirkan daawanaya waxaan ka codsanayaa in uu ku saliyo nabigayna Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. A traveler waa musaafirkii. A traveler musaafir ayaa once came mar ayuu yimid to the masjid, masaajidka ayuu imaaday, to see si uu arko the prophet Muhammad nabigayna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. After greeting salaan kadib, the prophet nabigu ayaa was asked, waxa uu weydiiyey ninkii ayaa la weydiinaya, waxaa la yidhi waxa uu weydiiyey where he was came from, halka uu ka yimid, xageed ka imaatay ayuu weydiiyey nabigu. musaafirkii marka wuxuu leeyahay traveler musaafirkii ayaa replied, waxa uu ku jawaabay that in he came from, uu ka yimiday a very far place, goob aad u fog. far waa fog, place waa goob, very na waa aad. marka meel aad u fog inuu ka yimiday ayuu u sheegay. sababta uu u yimidna ay tahay only clear to get, si uu uga helo a few questions, su'aalo yar answered in looga jawaabo. su'aalo yar in looga jawaabo darteed ayuu wuxuu uga yimaaday meel aad iyo aad u dheer. haddaba maanta adigoo gurigaaga joogo ama telefoonkaaga ama kombiyuutarkaaga iga daawanayo ayaan su'aalahaasi ninkaasi musaafirka ahi uu u soo safray si looga jawaabo ayaan kaaga jawaabi doonaa, kuu soo gudbi doonaa insha Allah. haddaba the flowing talk, hadalkan soo socda, the flowing talk, wada hadalkan soo socda is the dialogue, waa wada hadalkii ama wada sheekaysigii between u dhaxeeyay the traveler musaafirkii and the prophet iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam. traveler ninka ayaa hadalka bilaabay marka wuxuu leeyahay I do not want, ma doonayo, waa su'aasha koowaad buu weydiinaya. I do not want, ma doonayo punishments, ciqaabo to be written in lagu qoro in my account, akoonkayga. yacni akoonka marka aan leeyahay ma ahan midka bangiyada ka furan ee lacagaha lagu shubto. dabcan qof waliba akoon buu leeyahay oo camaashiisa loogu qori doonaa. adiga ayayna kugu xiran tahay haddii aad wanaag ka buuxsato iyo haddii aad xumaan ka buuxsato, intaba adigay ku taala. laakiin ninkani wuxuu leeyahay nabi allow akoonkayga in ciqaabo lagu qoro, yacni waxyaabo aniga ciqaab ii keeni kara in lagu qoro akoonkayga ma doonayo. nabigu jawaabo gaagaaban buu siin doonaa. muxuu yidhi behave well with your parents, behave well, si wanaagsan ula dhaqan with your parents, waalidiintaada. su-aasha labaad ayuu weydiiyey, wuxuu yidhi I want, waxaan doonayaa to be known, in aan noqdo mid laga yaqaano amongst people, dadka dhexdooda looga yaqaano as an intelligent person, qof caqil ah ama nin garaad ah. intelligent waa qof caqli u saaxiib ah. nabigu muxuu yidhi always fear Allah jalla jalaaluh, always hadi jeer fear Allah, alle ka baq jalla jalaaluh. mar walba haddii aad doonayso in dadka dhexdooda aad noqoto qof laga ixtiraamo, mar walba alle ka baq. haye haddana nabigu traveler muxuu yidhi I want, waxaan doonayaa to be counted, in la igu tiriyo amongst Allah's favorites, dadka uu alla ugu jecel yahay dhexdooda in la igu tiriyo baan doonayaa. erga favorites, Allah's favorites marka waxaa waaye waxyaabaha alla uu jecel yahay, yacni waa dadka alla uu jecel yahay ee uu doortay, dadka in la igu tiriyo ayaan doonayaa. maxaan sameeyaa buu leeyahay I want, waxaan doonayaa to be counted, in la igu tiriyo amongst Allah's favorites, alle favoritekiisa ama kuwa uu ugu jecel yahay. nabigu muxuu siiyey jawaabo gaagaaban laakiin qiimahoodu aan la soo koobi karin. muxuu yidhi recite, akhri quraan, quraanka akhri every morning, subax walba
and evening iyo fiid walba. Fiid waliba quraanka akhri baa lagu yiri iyo subax waliba, marka waxaad noqonaysaa kuwa alla ugu jecel yahay. haddana wuxuu weydiiyey I want waxaan doonayaa my heart qalbigaygu to always be enlightened, mar waliba inuu noqdo mid iftiimaya. Enlightened waa iftiin, qalbigaygu mid uu nuuraya ayaan doonayaa had jeer inuu noqdo. Never forget death ayaa looga jawaabay, marnaba ha iloobin dhimashada. Never forget death, dhimashada marnaba ha iloobin. mar kale wuxuu yiri I never want, marnaba ma doonayo to be away, in aan ka fogaado ama la iga fogeeyo from Allah's blessing, barakada alle in la iga fogeeyo marnaba ma doonayo. maxaan sameeyaa? Always treat other creatures well. waxaa la yidhi always had jeer treat, ula dhaqan ama ula macaamil other creatures, makhluuqa kale. Creature waa makhluuq, well si wanaagsan. wuxuu yidhi haddana I never want, marnaba ma doonayo to be harmed, inuu i waxyeeleeyo by my enemies, cadowgaygu inay waxyeeleeyaan marnaba ma doonayo. maxaan sameeyaa? Always have faith in Allah only, mar waliba iimaanka u yeelo Allah oo kaliya, yani cidna waxba ha la wadaagsiinin. su'aal kale weydiiyey I never want, marnaba ma doonayo to be humiliated, in la iliido ama la ibahdilo. I never want, marnaba ma doonayo to be humiliated, in marnaba la iliido ma doonayo. Be careful of your actions ayaa loogu jawaabay. actionskaaga ama ficiladaada ka taxadar. Be careful, ka taxadar of your actions, ficiladaada. I want, waxaan doonayaa my sustenance, risqigaygu to increase, inuu kordha baan doonayaa buu leeyahay nabi allow. maxaan sameeyaa? marka waxaa la leeyahay always be in wudu, mar waliba wayse qaadahaw. yani ablution waa English ahaan, wuduuna waa Carabi ahaan. so always be in wudu or ablution, mar waliba mid wayse qaba noqo, yani mid oo wayse qaba noqo. I wanted to stay free of punishment in the grave. marka wuxuu leeyahay I want, waxaan doonayaa to stay, in aan ku joogo free of punishment, mid xor ka ah ciqaab, in the grave qabriga inaan xor ka noqdo baan doonayaa ciqaabta. maxaan sameeyaa? marka wuxuu leeyahay always wear, hadii jeer xiro pure clothes, dhar daahir ah. pure wear, xiro pure clothes, dhar daahir ah xiro. marka haddana wuxuu leeyahay I want, waxaan doonayaa my wealth, hantidaydu to increase, inay korarto. maxaa la yidhi recite, akhri suurat alwaaqica, suuradda idaa waqacat alwaaqica ayaa la yidhaahdaa. suuraddaas akhri every night, habeen waliba suuraddaas akhri. ilaahay wuu ku siyaadinayaa dhaqaalahaaga iyo xoolahaaga. marka wuxuu yidhi I want to be safe, waxaan doonayaa inaan noqdo mid ka badbaada, and at peace, kuna nabadgala on the day of judgment, maalinka qiyaamaha. dabcan maalin waa un la iska leeyahay mahane, waa sida quraankeena uu noo sheegay 50,000 sana, waa 50,000 oo sanadood ayaa la yiraahdaa. marka dabcan ma ahan maalin fudud, maalinka inaan ka badbaado ayaan doonayaa buu leeyahay nabi allo. maxaan sameeyaa? maxaa la yidhi always had jeer do, samey praises of Allah, mahadda alle mar walba samey, from morning, laga bilaabo subaxdii to night, ilaa iyo habeenkii. praises waa alxamdulilah, ilaahay inaad ammaantid. ugu dambayntii I kindly request, waxaan si naxariis leh uga codsanayaa all Waya Arag Academy viewers, guud ahaan Waya Arag Academy daawadayaasheeda. viewers waa daawadayaasha. please fadlan saaxiibeel, aad iyo aad idinkaga codsanayaa, ma ahan arrin kaftan ah. share this video, la wadaag muuqaalkan to all your contacts, dhammaan numbariska kugu jira whatsappkaaga. and Allana will reward you, wuu ka abaalmarin doonaa insha Allah. because maxaa yeelay sharing of knowledge, faafitaanka aqoontu waxa ay tahay sadaqatul jaariyah. for you, adiga ayuu ku tahay, and me iyo anigana waa ii tahay. and we will receive, waana heli doonaa the reward, abaalmarinta waxaan ku heli doonaa for all those, guud ahaan kuwa who will watch, kuwaasoo daawan doono this video, muuqaalkan insha Allah, haddii ilaahay uu yidhaahdo. intaa ayaan kusoo afmeerayaa saaxiibayaal. muuqaalkan mid lamida inta aan uga kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano Allah.